salaamay walaalahayga qaaliga meel walba waa joogteen soo dhawaada waa anigoo ah ifraax youtube-ka daawanaysidna waa ifraaxiina channel oo ku mahadsantiin walaalahayga qaaliga sida qurux badan ay soo dhaweyseen maanta gabar ayaa waxay ii soo dirsatay ila tali marka gabadhaas wixii tali tusaale ah u haysid fadlan commentiga ugu reeb adigana sidaan oo kale hadii talo u baahan tahay ama wax sheeka inaad noo soo dirtid fadlan instagram-kiga iigu soo dir waa kaas shaashada ku qoran hadaba gabadhaan waxay dhahday assalaamu calaykum abaayo ifraaxiina waan ku salaamay abaayo magacayga ma rabo inaa iga sheegtid kaaba sheegaayo okay waxay dhahday abaayo waxaan joogaa Soomaaliya waxaan rabaa inaa ila talisid abaayo wiil ayaan xiriir lahayn muddo 4 sano ah aad ayaan isku jeclaan wuxuuna ahay xiriirkayga ugu horeeyay wiilkaas cidayda iyo friendskiga ilama aysan jeclaan maxaa yeelay waxay ii sheegi jireen mar walba inuu yahay qof khiyaano loo hadana naaga badan aniga sama aanan dhageysan jirin maxaa yeelay asaga ayaan aad u jeclaa waana wax walbo ay dhahaan familkayga iyo friendskiga maxaa yeelay waan jeclaay asagan mar walba wuxuu ii jir waa cadowgeena xiriirkeena ayay rabaan inay naga burburiyaan okay hadaba abaayo sheeka dheer ka bacdi ma soo koobi karo qoraalkeedan gabadha aad ay u dheereen marka inta muhiimka isku day inaan ka soo qaado abaayo iga raali noqo hadaan wada aqrin waayo waxay dhahday wiilkii sidoo u jooga habeen ayuu ii imaaday wuxuu igu dhahay abaayo aniga cidayda ayaa waxay rabtaa in ay gabar igu darto aabahayga aniga waan ka xanaaqay oo xoogaa waan ka xumaaday wuxuu ii sheegay in aabihiis uu dhiikar qabo hadii uu diidana aabihiis naftiisa ay halis noqonayso ama la habaarayo aniga waxaan ku dhahay aabahana dhib uma rabo adigana habaar kuma rabo sidee xal ah wuxuu igu dhahay cideedina qanciyo waa qasab laakiin adiga nolosheeda adiga ayaan ku jeclahay adiga ayaana ah xaaskayga mustaqbalka balse waalidkay ayaan ku qancinayaa qofkan marka ii dulqaado aniga jeclaan qab awgiis ayaan waxaan ku dhahay hayo waayahay uu guursaday aniga dhibaato far badan ayaa waxaan kala kulmay asxaabtayda iyo familkayga maadaama shalay ay igala talin jireen in sheegi jireen in uusan irabin ka bacdi waxay igu dheen waa kaasa wixii aan ku sheegeynay soo ka guursaday ninka ani asagana wuxuu iga dhaadhiciyay in familkiisa ay ku dareen dhibaatana ay ku tahay hadii uusan guursanin in kaar ay ku dhaceyso ama waalidkiisa xanuun soo gaarayo waa iska dhageysan jiray dadka waxay dhahayaan asaga ayaana sugi jiray ka bacdi waxa la ii soo sheegay inuu uur loo yeeshay oo cunug loo dhalay ka bacdi uu ii imaaday waan weydiiyay uu igu inkiray ka bacdi adana uur labaad ayaa loo yeeshay muddo dheer ka bacdi iyo hadal badan ka bacdi laba cunug markii loo dhalay ka bacdi ayuu wuxuu igu dhahay habeenada kamid intuu ii imaaday arrin arba inaan ku sheego okay arrinta maxaa waayaan ku dhahay wuxuu igu dhahay walaalay runta hadan ku sheego wuxuu igu dhahay walaalay macaanay aniga runta hadii aan ku sheego gabadhan wax cideeda igu darto malahan aniga ayaa dooqayga ku guursaday xiriir ayaana la lahay adiga kaliya waan ku tixgelin jiray maadaama aan ahayd qof aad ii jecel ayada maadaama ay jecelkaaga ayaan ku tixgelin jiray aniga gabadhaas ayaan jeclay aniga ayaana dooqayga ku guursaday marka waan ka cabsaday si aan kuugu sheego maadaama qof jecel ahayd marka abaayo aniga waan qalbi xumaaday dadkii waxaan la hortaga malahan dadkii iyo warkoodii iyo familkii asxaabtii iyo anigoo niyad jab weyn igu dhaca qalbigan ee xanuunayo fadlan ii soo duceey talo iyo tusaale wixii ay siin kartid oo walaaltinimaan igu soo fadlan gabadhan talo u haysid commentiga ugu reeb aniga taladeeda ku soo hartay ani waxaan ku dhihi lahaa walaasheedii sanad wax la isku dara ma ahan adiga buu ogtaa waan dareemi kartaa gabar xataa wax ma lagu daro wiil iska dhaafay horta aday aqligaaga inaad ka dhageysatay shalay gabara naaga la igu daro waa aroosa ka ogolaatay sugtay lambar 2 sidee u ogolaatay gabar adiga kala oo walaashaada oo gabar adig amaleeti oo wax ku dheerin ina waa lagu soo fura lagu dhaho hay'adaha ku qanacdid taas qalad kugu weyn sameysay lambar 2 markuu guursado horta inaad tashatay ahayd tashatide ahayd nin naag aroos oo batagiibo waxa u sugtid khalad waaye ina iska tashatide ahaydinbo waa tashaweys waa sugtamo cunuga dhalay cunug labaad dhalay ii soo fura taagantaa wali waa bisi sugaysaa ninka maanta naag ilmo dhash ku soo furaayo adina intaas oo sano been kula jilay 4 sano ku khiyaanay kalsoonida aad ku sugaysid intay ka keentay birim waxa kugu sameyn karaa maanta toosas kugu sameysay u sugaysaa horta u sugtay waa sugtamaho dib malahan qof dambe ha sugin qof dambe ha sugin nin dambe ku dhahnaaga la igu darayne ha ka dhageysanin hana sugin ma fahamtay haddana ilaahay waxa kaaga rajeynaa qalbigaaga inuu ku dhayo bedel ka qeyr badan asagana uu ku siiyo
hadda ka bacdina waxaan ku dhihi lahaa ka digtoonow iskana ilaali qof dambo oo ku dhaho waxaa la igu daraa iyo waxaa la iyaala iyo teeda kaleentane ha sameynin qaladka aa samayso oo ah nin naag kuu dhahay waa kuusoo fura inaad dhegaysatid oo sugtid gabar walaashaada reerkeeda laguu soo burburiyo ha sameynin ninka naag maanta kuu furo adna beri naag kale intuu ku furaa maxaa yeele naagaha way kaa badan yihiin adig keli ma ahan sidoo adig taas kuugu soo furo oo berina mid kaleent kaa dambeyso oo kuugu furaa ma fahmino marka insha allah waxaa kuu rajeynayaa inaa cashir kuu noqoto iyo tusaalo ani waxaa kugula talin lahaa ha u joojin fursad waa haysataa weli noloshaada bilaawaaye wax dhib kuguma dhicin maanta oolaadkaaga ma uusan tegin alxamdulilah hore u socaan ku dhihi lahay aniga weli jaanis aa haysataa wax kaa halaabo ma lahan ilmakaaga ma uusan tegin alxamdulilah mustaqbalkaaga bilaawaaye waxaan ku dhihi lahay waxaas dhan niyadaada ka saar insha allah qof bedel ka qaar badana ilaahay kaaga rajeynaya tanna cashir ha kuu noqoto qaladka aa sameysayna mardam ha sameynin oo ah in aa dhahday iisoo fur uu ku dhaha waa kuusoo furayaa aan ka wadaa adina aa ka dhegaysa nin ku dhaho naaga kuusoo furaa beri adna mid kale kuu furaa ma fahanta qaladka labaad waxay tahay nin ku dhaha naagaa la igu daraa oobu lagu daray oobu guursado oobu guri la kale inay sugtid asana qalad kaleenta waa ma fahamtay ka daneyso ninka kaa daneysta ka daneyso ninka kula socdana iska ogaaw iska fiiri qof walbo bini aadanku iska khiyaano badan yihiin nimanka saa-id waayo marka waxaa ka dhilaa nimanka isku mid ma aan kugu fiicanaa jiro ma fahamtay yah adi waxaa waay naag nool iska dhig qalbigaaga xiro asaga iyo sheekooyinkiisane iskaba hilmaanba dadka aa leedaha caqabadaha kala kulmane familkaaga horta familkaaga waa dhibaato kula marabaan wayna ku dareemi karaan saan jeclahay asxaabtaadana maahan oo saaxiibka fiicanna waxaa lagu yaqaanaa qofka saaxiibkiis markuu dhib lasoo kulmo in dhaawac inuu la qaybsado ma aha inuu ku digto ama uu dhaho waakaas waxaa kuu sheegi jiray saaxiibka aan dhaawacaaga kula dhayayn oo qalbiga kuu dejinayn saaxiib maba kuu ahanba kaas iskaga tag ayaga dhan iska gooy noloshaada hore u raaco dad dhan ha fiirin wixii ku dhibaya gadaala la mariyaa noloshan gadaash lamaba fiiriyaba sideedaba horey lela fiiriyaa ma fahamtay marka ilaah waxaa kaaga rajeynaya bedel ka qayr badan insha allah adigana tan cashir ha kuu noqoto hadda kabacdina ka fiirso qaladaadkaagane ha gelin marka leente oo hadda aa gashay oo inaan nin naag aroosay aa sugtid nin naag ilmo u dhadhaloos oo guri degan inuu ku dhaho waa kuusoo furo aadan ahayd aada u dhageysatid taasna qalad ay kugu taa ma fahamtay marka walaashaydiiya macaani ani waxaan ku dhihi lahay dhexda xero noloshaada waa bilaaw qaaliga waxaa idinka codsanaya gabadhan inaa usoo duceysan in ilaahay bedel ka qayr badan oo sii qalbigeedana oo u dhayo teeda kaleente haddii aa rabtid inaa la talisid fadlan commentiga ugu soo qor adigana sheeka haddaa noo haysid qiso waxyaalo kugu dhacay haddii aa u baahantaha in lagula tali fadlan instagramkii iigu soo qor waa kaasaa meesha ku qoran waa mahadsantiin waxaa idin leeyahay soo dhawaada nimanow idinkana khiyaanada iska daaya gabdhow idinkana nimanka khiyaanadooda iska ilaaliya marka waa inoo fideoga dambe insha allah walaalahayga qaaliga idin leeyahay